recycle bin maxaa la yiraahdaa? Restore sidee loogu sameeyaa file aad delete garaysay? waxyaabahaas arki doona. Recycle bin waxaan dhihi karnaa computerka wuxuu leeyahay failasha markaad tuurtid meel lagu keydiyo. haddii optionkaas aa ogolaatay in lagu keydiyo waa lagu keydinaa, haddii iska diidona waxaa la sameyn doonaa in laga sii daadiyo oo dib dambe aan u helin ilaa software qaas ah aa isticmaashid. marka recycle bin waa meesha lagu rido wixii qashin aadan u baahnayn oo computer ku jiro marka iska daadinaysa meesha ay galayaan waxaa la yiraahdaa recycle bin. recycle bin haddii laga sii tuurana toos ay u baxayaan. sidee loo soo celiyaa recycle bin? marka wixii aad ku tuurtay see u soo celin kartaa waa arki doonaa. empty sidee looga dhigaa recycle binka? marka empty ka dhigaysid faylal badana ka buuxo kale inaa faaruq ka dhigto iska tuurtaa rabtaa. waxaa sameynaysaa waxaa leedahay taskbarka iconka oo recycle bin, iconka recycle bin right click leedahay, kadib waxaa ka doorataa empty recycle bin. waxaa sameynaynaa hadeertaan waxaa rabaa recycle binka in aan wax ku tuuro, wax markaa ku tuuro aan soo celiyo, sidoo kalena wax badan oo ku jiro recycle binka aan kasii tuuro. recycle binka waa kana, waxaan sameyn karaa recycle binka waa kana, waxaa dhigi karaa double click, kadib waxaa iisoo baxaayo qeybahan. marka failasha inta ku jiro haddaan rabo inaad iska tuuro waxaan sameynayaa inaad soo ceshto. haddaan rabo tusaale recycle binka waa kana aan sheegaynay sidee gudaha loogu galaa, double click aa leedahay, kadibna failashaan ku jiro. marka failashaan failal hore loo tuuro waayo. tusaale mid anagaa soo tuurayn hadeertaan waxaa tuureynaa midkaan oo kale delete, right click delete, yes, kadib gudaha u gal, test ready, test waa kana, mid kalena ku jira, laba test ku jira, mid hore u tuuray, mid kalena gadaal dambe ka tuuray. sidee usoo celin karaa? right click, kadib waxaa leeyahay restore. qaabkaas u soo ceshan kartaa. magaca ku qornaa raadinaysaa, kadibna right click aa leedahay restore oo ku soo celin kartaa. waxaa sameyn kartaa waxa meesha kugu jiro dhammaantood hal mar inaad soo wada celiso. daarad waxaan sameynaya meeshaan ay ku qoran tahay restore all items. haddii aad arki weyso waxaa laga yaabaa homeka inaad joogtid, waxaa imaadaa recycle bin tools, kadibna restore all items. haddii aad ku dhufto hal mar wuxuu sameyn doonaa in uu wada tuuro, in uu soo wada celiyo. sidee recycle binka ever looga dhigaa ama faaruq? waxaa leenahay right click aa leedahay, kadibna meeshaan waxaa ku qoran empty recycle bin, ku dhufo, kadib waxaa leeyahay ma hubtaa in waxa recycle binka ku jiro si toos ah loo tuurayo. haddii yes aa dhahdo kadib maxaa la sameyn doonaa recycle bin gudaha usoo gal, waxba kuma jiro, faaruq waayo. recycle bin optionska maxaa waaye? marka optionska uu leeyahay recycle binka waxaa kamid ah in recycle binka hadda markaa wax tuuro way galaan, kadibna waa soo ceshan kartaa. waxaa ka dhigi doonaa in aan dhahno recycle binka ha gelinin wixii la tuuro, horey usii tuur. iyo waxaa kaloo jirta waraaq yar oo dialog box la yiraahdo, waraaqdaasna waa qarin doonaa, marna waa soo muujin doonaa. sida caadiga ah waxaa la dhahay recycle binka markii wax ku tuuray sidoo kale waraaq yar ay jirto lagu ogeysiinayo, lagu dhahayo shaygan ma rabtaa inaad tuurto. waraaqdan yarta waxaa la dhahaa marka dialog. sidee marka waraaqdan loo qariyaa? markii la qarinayo kale waxaa sameynaysaa jeega ka qaadaysaa, hadhowna waxay dhici doonto in dib dambe aadan u arkin oo wax ogeysiisna lagu siinin. marka waxaa laga yaabaa marka optionkan haddii jeega ka qaado in mararka qaar si ula kac aan ahayn gacanta ay kaaga dhacdo delete, kadibna si toos oo u delete garayso failasha. marka yes iyo no-dan digniinta markasta waa fiican in uu ku shaqeeyo ama uu ku optionkaas uu ku enable oo ku yahay. marka balaa sameyno hal mar. hadda wixii la tuuro, tusaale testiya tuura, right click delete, yes,
gudaha markaa soo galo waxaa ku jiro test. okay celi waa soo qaadanaysa loo celinaa right click restore. okay filekan haddaa dhaho ka waran recycle binka ha ku shubin. hadda recycle binka markaa gudaha u galo eber waxa kuma jiro, right click aa leeyahay kadibna delete haddaa dhaho waxa ma isbedelayo waa isla sidii. maxaa leeyahay marka recycle binka imaanaya right click dushiisa kadibna properties markaa gashid waxaa ka doorataa qaybtan ay ku qoran tahay do not move, click C kadib waxaa dhahdaa apply. okay hadda waxaa tuuraya filekan right click delete recycle binka soo gal waxba kuma jiraan fileka out toos u baxay, soo celis ma laha ilaa software qaas aa adeegsatay maahane. okay waxaa rabaa hadda markaa wax tuuraayo waxaa jirto hadda tusaale right click markaa dhaho delete aa ku dhufto waraaq yara iisoo baxayso. waraaqdan delete confirmation dialog aa la yidhahdaa. waraaqdan marka waxay ku ogeysiinaysaa waxaan aad tuuraysid moogtaa in aad rabtid inaad tuurto ay ku leedahay. marka haddaa aad rabtid iyo saale haddaadan rabin ay gacanta kaaga dhacno aad dhihi kartaa. marka waraaqdan markasta jeeg inaadan ka qaadina fiican, laakiin cashir ahaana u baranayna anaga waa iska qarinayna sida la iskaga qariyaa waraaqdan oo su-aasha ku weydiinaysa iyo sida loo soo muujiya. marka waxaa leeyahay recycle binka ima right click kadib waxaa leeyahay properties kadib waxaa leedahay meeshaan jeega ka qaad display delete confirmation dialog ku qoran soo muujeeda. jeega hadaa ka qaado apply. okay kadib hadda right click aa dhaho kadibna delete aa ku dhufto wax waraaq ogeysiis lama weydiin. hala dul recycle binka ka raadinaa xagana waxa kuma jiro aaway filekii hadaaye optionkii waxaa ii shidnaa oo weli ii shaqeynayo mar haddii la tuuro file recycle binka ha gelini. okay sidee marka optionskaas dhan loo enable garaya? halena right click recycle binka properties waxaa rabaa optionkii ahaa markii wax la tuuro recycle binka inuu ii geliyo ama iigu haayo. halaya custom ka dhig okay kale. okay markaa dhahdid waxaa leedahay folderkan oo kale iska tuuri rabaa tusaale right click delete recycle binka imaaw kadibna waa kana new folderka aa soo tuuray. haddaa celiyo folderkan waxaa rabaa markaa tuuraayo in ogeysiis laii soo bandhigo oo layidhaho folderkan hebel ku qoran ma rabtaa inaad tuurto. sidee loo sameynaa ayadana right click properties mid haddaa tigta ah ka qaadnaa tigta saareynaa kadib waxaa leenahay apply. okay hadda daa right click aa rabo aa isku daya inaad tuuro waxaa iisoo baxayo waraaqda yarta. waraaqda marka horaa u sheegnay waxaa dhahne delete confirmation dialog. marka yes haddaa dhahdid gacantaada adaa isku dila adaa ku qanacsanaa soo maa. kadib recycle bin ka raadi wuu kugu jiraa. haddii recycle binka uu off kaa yahay in ay wax soo galaan sidoo kalena jeega ah ka qacday waraaqda yarta ee confirmation dialoga hadhow dhibaatada adaa isku geysa sababtoo ah labada option waa iska xirtay si kadiisa wax u tuuri karta. marka ugu yaraan recycle binka furo jeegana saar midaas. marka labada option haddaa ku celiyo right click properties kadibna waa kana midaan display haddaa jeega ka qaado waraaqda yarta ka qarina. sidoo kale custom midkaan haddaa dono move qaybtan haddaa soo saarto ayadana wuxuu sameyn doonaa in failash recycle binka uusan ku ridin oo toos u baxo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.